nimanka alla koodkii waxay u qaybsamaan laba qaybood waxa la yiraahdaa ilhaad iijaabi iyo ilhaad salbi ilhaad iijaabi waa maxay waa alla kood isagu leh oo sheeganaya waxaan ogahay inaan khaaliq jirin aanu allah jirin aanu khaaliq jirin baan ogahay ya wa mulhid iijaabi wuxuu sheeganaya yaddaci inuu og yahay inaanu allah jirin oo khaaliq jirin nooc labaad waxa la yiraahdaa ilhaad salbi baa la yiraahdaa waa alla koodnimada iyadu markaa aan sidaas ahayn oo oranayo anigu waa ka shakisnahay inuu jiro iyo inaanu jirin ama ma ogi inuu jiro kii hore muxuu sheeganayay inuu og yahay inaanu jirin laakiin ka dambe muxuu leeyahay anigu ma kala ogi inuu jiro inaanu jirin ama waa ka shakisnahay inuu jiro labadu waa laba gaal waayahay waxa laga yaabaa inuu ku yiraahdo aan kula doodo horta marka koowaad waa in ishkaalaadka uu soo aroorinayo adigu aanad sugin adigu waa inaad marka wax weerartaa atahay maxad ku ogaatay waxa laga yaabaa si aanad wax u weydiinin daliil iyo wax la mid ah inuu yahay waa ka shakisnahay oo ma xaqiiqsaniyo ma garanaye adigu ii caday inuu jiro waxa tiraahdaa mar haddaad shakisan tahay shakigu waa jahl inaad doodo xaq u malihi kafa bishaki jahlan shakiga aqoon daro ugu filan shakigu waa jahl cilmi ma aha qofkuna haddaanu cilmi haynin inuu doodo xaq uma leh dadka jahalad miyay culamada la doodaan imika qofka aan anigoo kale oo aan cilmu tibbi garanayn dhakhaatiirta mutakhasisiinta ma la doodi karaa oo inaan qabsado markaysa waxaa nimanka dhakhaatiirta aan idhahdo saas sheegteen sax ma aha wayn doodaynaa kaalaya دكتورka neerfayaasha دكتورka indhaha دكتورka waxa yani dumarka ka waxa weeye marka baatiniyada kale weydii la doodayay ya xaq miyaan u leeyahay in la doodo halkay wax ka soo qaadaan oo ila doodaan biyay tahay markiisa marka waxa yani aqoontood mar haday ku saabsanto aqoontan anigu aan lahayn ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm haw gudoosa waxa cilmi lahayn cidda doodaa ayo waad cilmi leh marka haduu leeyahay anigu ma garanayo inaan u jirinayo inuu jiro ma kala garanayo ma kala ogi haddana ila dood inaad dooddo xaq uma lihide yani waxa weeye wixii lagu sheego qaado ya yani qofka jaahilka ahi inuu la doodo cid cilmi leh xaq uma laha hadduu markaysaga wax weydiiyo looga jawaabo waa inuu aqbalaa hadduu markaysaga toroleeyo waa laga dhaqaaqaa lalama hadlo ya oo ruux marka waxa weeye hadda aqli leh oo oranaya dadka jahalada wax magaratadii dadka cilmiga leh ayay la doodi karaan oo qabsan karaan ma jiro hadda marka ama tibbi ha noqoto ama handasa ha noqoto ama xisaab ha noqoto ama diin ha noqoto ama cilmi kale ha noqoto cid cilmi taqaana cid cilmiga ka jaahila la doodi karta warkoodan la dhageysanayaa yani oo wax laga soo qaadaya ma jiro ibra male qofkuna waxaanu cilmi u lahayn inuu ka hadla maaha taasi waa mid la isla garanayo waayahay waxa yimid nooca marka waxa weeye ilhaad iijaabi alla koodka sheeganaya cilmiga oo leh anigu waxaan ogahay inaan khaaliq jirin baan ogahay su'aasha markii baad weydiinaysaa waxay tahay maxaad ku cadaynaysaa inuu jirin cadayntii baa laga rabaa albayinatu cala almuddaci ya والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء فدعوى دليلك baa laga rabaa iyo cadayntii hadii yahay ma arag wax ka sanad arag ma jirin miyaa aqliga ma arag ruuxdaada ma arag canka haduu yiraahdo waxa weeye marka aqliga ima tusin oo aqligu inuu ku tusin waayaa ma waxay sheegaysaa aqligaagu inuu ku tusin waayaa inaanu jirin ya haduu yahay wax daliil uma ogi wax daliil oo cadaynaya wuxuu dooraba ha noqday anigu ma ogi wax daliil inaanu ogeyn waxay sheegaysaa inuu jirin miyaa waxaan adigu marka ogeyn ma jiraan miyaa ya waxyaalo badan baa jiro hadda aad ogeyn waxa laga yaabaa beledada qaar inay jiraan inaad ogeyn ma jiraan miyaa haddaan ogeyn dadka qaar baa og hadduu ruux yiraahdo ka waran bishii anigu ma arag haye haddana arag lama arag macquul miyaa soo ma dhici karto iyadoo adigu aad arag qeyrka inay arkeen idan lam tara al-hilala fasallim li unas ra'awhu bil absar haddana bisha arag yani u sallim dadka marka wax indhahooda ku arkay
macquul maaha in la yidhahdo haddaan anigu arag cidiba ma arag adigu ma cilmiad koobta ya daliil haddaanad u ogeyn waa nafyi waxa weeyaan waa nafyu cilmi ogaalkaagaad ka nafyiday cadamu lcilmi bishayi laysa cilman bilcadam waa qaacido caqlana la garanayo cadamu lcilmi bishay shay inaanad garanaynin laysa cilman bilcadam maaha ogaal aad og tahay inaynay jirin iminka masaa'il sharciya laga yaaba inaanad garanayn masalada sharciga haddaanad garanayn macniheedu ma jirta miya ya xadiis nebi baa laga yaaba oo aanad garanayn inuu jiro adigoo taalibucilmi ah macnaheedu waxay tahay xadiiska nebiga ma jiro haddaanan garanayn hal hada macquul culumta haddii la eego maadiga waxyaalo badan oo dee culum maadiga aynaan garanayn oo dadka yaqaanaa ay garanayaan baa jira haddii aynaan garanayn ma jiraan miya cilmiguma wuxuu raacayaa markiisa ogaalkeenna oo waxaynaan ogeyn ma jiraan miya maraykanku mar buu ahaa markiisa markaa qaarad aan la aqoon oo dadku aynay ogeyn markaynay ogeyn inay jirto qaaraddaasi ma waxay ahayd waxaan jirin ya mise iyadoo jirta ayaan dadkii ogeyn oo ka warqabin marka waxa weeyaan waxaa la yahay cadamu lcilmi bishayi laysa cilman bilcadam marka inaanad ogeynin caddayn mayso inaynay jirine daliilkeen hadda marata marka waxa weeye qaabka loola doodayaa saa weeye markaad la doodaysana waxaad isticmaalaysaa yani waxaad sheegaysaa lafdiga alkhaaliq iyo almakhluuq baad isticmaalaysaa shaygan makhluuq iyo xaadis iyo khaaliq iyo muxdis ya ayaad isticmaalaysaa tacabirtaasaad marka waxa ka cabiraysaa markaad waxa la doodayso yani adiladana waad weydiinaysaa waad ku cijinaysaa maaha inuu mar walba adiga wax ku weydiiyo laakiin adiga hujuum oo weydii waa hadduu markaa aqoon sheeganayo waxaana kula talinayaa si caalana waa inaan loola doodin oo marka waxa dadka aan lagu tashuushgelin yani marka waxa waxyaalaha noocaas ah dadka marka waxa weeye aqoon darradu marka ay hayso waxyaalahaas marka iska galay